من باياب شيء أنا هو يابي كان يابك درنا لكويتي وروحان لي يابي من فرح معلن لينا وكم من السياسيين تصومالي كينيا أيها الصومالي كهذلي وير الصومالي إلا الدلم معهنه ده وكلام ماله وهينا أوبا أنت أيبويري نمبر لايا سبرك كلا يقارن ما أوبرتان ولي بقى الله بريو كوسي درس هذا هبار وعلى إلهي كبري يا أبويري إن إلهي وكانوا نصدق بقول أو كن أو غف كدله أو لجبقه مرت واحد ليا بنا فرح إن بدن علىها كلا سعودي حاسد لما حاسد بكو قرصوني أنا وعندينا أنا وعندينا هذا متكيش الله هو جيل كدير سنشري ده كهولنا طلابة مركي هو الشبع هذا أنت كتور لها أيها اللي بدونا يوهمون تباس خبو بالله ولا هذا يهدي على قورتكين إن أنخرنا هيبدو ناقب تري كرلامي هو يرتاي مينو هو يرتاي مركانا وعندي لها dadka iyagu inuu wada xun yahay oo xiqdigu buuxshay iyo inuu xaqiisii rabo la xudunsiibayo hagardaamadii xaasidiya xulafo weydiiya anina ma erafaday loo lan hun la jarmalida wasa lanki Soomaali hayleey laabtisku guuhasa ilaahow lug iyona ilama ku goy war Faarax Macalin iyo TMki sabab ku qaraxay ninkii wadi waxba isma dhaamaan war wasiirkii shalay Cabdi Fataax Geesay arbaca iyadoo la gaalina booskiisa la buuxiyay hadda nin kale ma buuxin waxa buuxiyay ninkii hore booskiisa u buuxin jiray waana Cabdi Aadan Hoosow waagii gudoomiyaha gobolka Bay laga qaaday asaga lagu bedelay haddana wasiirkii uu iska casilay isaga lagu bedelay hadda waxa la yaabanahay shalay markii Geesay is casilay Hoosow wuxuu Facebookiisa ku soo qoray Cabdi Fataax Geesay gobonimo hadda waa yaaba marka hadda asaga wasiirkii noqday ma gunnimo ku qaatay war ninkii boos ku baneeya gobonimo inaad tiraado u hambaliyayso waa mudaya aryaadaha Khadiija Maxamed Diiriye waxay tiri been raad male kadibna wasiirka gaashaandhigay qadka live u soo gelisa waxayna tiri haddaan caday dada waxay leeyihiin wees casilaahay asaguna mugaasoo yiri ebadkay isma casili doono weligayna kuma riyoon xilka lay dhiibay nimiyow ani warsiin haaya lanki huura hoogda asalooya leere gobolkii Baydhabo janaay hayti dad badan ka hadalay dhegna jalay ma insiina gudoomiye baarlamaan haadoy wasiir isasiri haadoy xildhibaan tir badan haaden odayaal dhaqameed haaden may leeyina doorashada dib hal indhago lahaayeen warshona may dhageensane musharaxiintii madaxweynenimada sharxanayaan birsho shalay qudbeen haan kalena geega qudbeen may taasi inka dorona lankalang maleeyo madaxweynaha mustaqbalka geekantii usan qudbeyna ka hor walaagi xildhibaanaha ayno odayaal hayaan meeli ka jiraan wal habiyay wal fatashay gobolka lang nadiifi uu ku takroogsay madaasa qudub bilaawi markii doorashada arbaawa dhiyaasha kama dambeesu madaxweynaha isan basko gorada kortan lanki hura hoogda asaloy hadda Baydhabo jannay warkeeru ma wuxuu mara nin dooran door dhaxow dhahdeen dadka si loogu daaliha Abdullah waaw diya ka tagtay wareeda doorashada koonfur galbeed sidii shariifkii uu tagay buuq waa sii badanayay waxaan anigu ku talin lahaa shariifkii looga soo ducaa qaado koonfur galbeed aan hela sharaaftii oo jinaay wili shawado ala ka dalaba jiri laakiin aasiya ku hoos bahay war musharaxa lafta gareen wuxuu yiri dadka koonfur galbeed waa dad nabada jecel laakiin waxa jiro yiri dad finna wada oo dulmi horanaya wuxuuna yiri hal joojiyo dhibaatada laga wada koonfur galbeed aniguna waxaan ahay nin u dhashay koonfur galbeed xaq ayaan u leeyahay inaan u tartamo xilka madaxweynenimo warwaran haysiide Baydhabo jidadku waa la furay Muqdisho la xiray waxaana la yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo xiray maanta war mudaaradi mudiyaarnay waxay sheegeen xisbigiisu inay baroordi qaban rabeen oo maanta ay ku beegnayd maalintii gurigiisa la weeraray hadda hotelka ay ku qaban lahaayeen waa la xiray jidadkii la isu mar lahaayeen waa la xiray ya Cabdiraxmaan ma dhiman xal loogu baroordiiqa wararta xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kunkii qof oo qaraxiisa ba ku dhimatay ma u baroordiiqan markay maanta shan qof u baroordiiqayaan aniga aan idin warramay war ma haysiinay jawr balaayaa ka dhacday walaad shali aan ziyaaradiisa ka qayb galnaa xalin la weeraray walaadka la weeraray Maxamed al-Bukaay idinka waxa u taqaaniin Sheekh Ooyaaya ayaa awoow u ah hadda wiilkiisana waa la dilay asagina waa la dhaawacay ay maxay tahay balaayadaasna la soo maagmaagayeen siyaarheena sheeqeena sheeqiisaan siyaarheena عجيب لك العجيب ساس ليغن
war sheekha la weeraray maxkamadda Gamboole ee shabaab laga wacay war sheekha la weeraray maxkamadda Gamboole ee shabaab laga wacay waana diiday inuu tago wuxuu yiraahday qawaariij kama marqaat ee siyartay u filim waryaadeen dhagaysta gudoomiyaha baarlamaanka ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi war Turkiga horta muu ka soo laabtay mise wali uu ku maqan yahay aryaa hadduu ku maqan yahay Turkiga hadduu ku yimaadba idinku waxaad ku darsateen war wad waaranta soo qaamuskaygi maaha war gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii waa heshiiyeen waa tii la yiri maxay ku heshiiyeen warnimayo war ma haysaane qoladii Daacish waxay tiri shabaabaan ku xasuuqnay qandalaagtiis marka waxaan la yaabanahay wax badan ay masaakiinta dhiigooda ku banaysteen waan ku shahiidaynaa maanta ma ayaga isku shahiidaya waxaan daawanaynaa diin la isku haysto laba wada dukanayo daris iyo walaala midba inuu ka kala dilo wanaag ugu dugaalo dambi dhaaf ku raadsado warmaayada hore loo iran nin bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war waa isdilayna lagu yiri yaa ku yiri waa wada shaqeeyaan shinnaha kullays adiga naftigaade aryaadaha xabad kale ma ogidiina maanta Sheekh Shariif xisbi furtay himla qaranaana la yiraa anigaan adiijeedina xisbigaasaan ku biiri rabaa anuu mucaaradkayga waa ka baqaylaya xisbi mucaaradan la haynan degdeeridan fadaasan reed war Mareykanku 60 shabaab cirka uga soo dhacay buu yiri waa xagee meesha uu ku dilay war gandarshaatiisa lagu gumaadaa la yiri waa shabeellada hoose xarar dheer uu sanba wali ka soo dhameeyna muxuu gandarsha ka doonay xarar dheer xaw aada shabeellada dhaxo uga fududeeday war Jubbaland ha ka soo dhameeyo Soomaaliland waxa soo kala tagaana war madaxweyne galmudug xaafid ducaale waa gabi wuxuu yiri gudoomiye la xiray waa midkay nagu guhaadsheen maxaa u geeyay cali gacalba waa uga garaabeen waxaan yiri xilka loo tartamayo marka taajka la qaato tira kooban ka reebe nibatiisa u qaasa ayuu tiigsanayay tan guud yaa ka wakiila war maxaa tan guud laga fakiraa kala bar hal la dilo waa ka faarax ku talinaye faarax Kenyaati boo taladiis ma inoo ka jaroon war yaa talada faarax maxaa loo diidaa dadka wax u yihiin hal laaye